بسم الله الرحمن الرحيم. magacayga waa Dr. Maxamed Qaasim Cabdulle. waxaan ka howlgalaa xarunta Royal Optical and Modern Eye Clinic ee ku taala xaafadda Suuqbacaad degmada Yakshiid gobolka Banaadir. xarunta bulshada Soomaaliyeed waxay u qabataa daaweynta xanuunada indhaha ku dhaca iyo waxyaabaha la xiriira xagga indhaha. xarunta dadka yimaada hadii aan waxyar aan wax ka sheego dadka waxay u badan yihiin dadka caawinayo xanuunada aragga xaggooda ah oo aragga fog iyo aragga dhow. xanuuno waxaa jira oo common ah oo daayarta u badan oo bariyahan tiknoolajiyada casriga markii wadanka ku soo badatay kiisaska badan aan la kulan waxay u badan yihiin daayarta. waxa keenana waa tiknoolajiyada gaar ahaan cudur la yiraahdo computer vision syndrome. ma aan cudur weyn laakiin waxa laga dhaxlo waxa u badan aaladaha oo bullet light-ka iftiinka la xiriira sida computer-ka screen touch-ka telefoonada TV-da iyo wax walba oo la xiriira bullet light-ka. marka iftiinka daayarta waxa ka waanina inay iska yareeyaan oo isticmaalka aaladahaasi si social media oo kale waxyaabahaas indhaha waxay koos gareeyaan aragtida xitaa inay yareeyaan sababtoo tahay qaybta madow ee cornea-da waa transparent. indhihi waxay kooban yihiin cornea-da rayska ilayska iftiinka indhaha soo galaayo cornea-da oo galaa kadib wuxuu sii gudbaa AC anterior jabarki waxa ku sii xiga buubalki waxa ku sii xiga lansii waxa ku sii xiga vitroski ilaa shabakada dabo sidaas ay u socotaa. marka qofka kullama oo fiirsado qaybta dambe inuu damage gaarsiiyo oo macnaha focal point-igi bar aragga ku sameysmaay inuu ku sameysmaa laga yaabaa in front of the retina ama retinaha hortiisa oo aragtidaas ku gaabto. marka dadka kuwa camalay waxay ku leeyihiin iftiinka ay dhibaayo indhihii macnaha nimirsiga waa jijibina oo leeyahay qofkii xoogaa maash xanuun oo ka sheegana waxaasna waxa keenaya waa iftiinka wax la xiriira. marka waxa la yiraahdaa afka qalaad dry eye ama indha qaleel. qofka marka waxa yaraanaya hormoonkii la soo deynayay oo qofka tusaalahan qofka markuu habeenkii fiirsado oo wax badan saacado badan oo ku mashquulo mobilkii ama internetkii hurdadii si la rabo meelaha sababtoo tahay qanjir ku yaalo maskaxda oo leeyahay pineal gland jiro wuxuu soo daayaa hormoon la yiraahdo melatonin hormoon wuxuu qaabilsan yahay regulation of sleeping oo ah tandiim noom hurdada iyo nidaamiya. marka hormoonkii 3 saacadood uu dib u dhaca qofka 6 saac ku gaaray ama 7 saac waxa macquul ah inuu seexdo habeenkii 9 saac ama salaada subax xilligeeda in hurdada inta kale uu gadgadoomaa hurdada si fiican meelaas waxa uu sababaa oo boost gareenayo joojinayo oo boos dhahayo waa waxyaabahaas oo bullet light. marka waxa kula talinaynaa inay iska yareeyaan ifan hadii qofka uu waayo oo kiyaalo protection light ama gobol oo jooga oo suurtagal weyso waxa lagu taliyaa inuu sameeyo 20 minutes 20 daqiiqo inuu fiirsado mobilkii kadib indhihi xoogaa space yar oo siiyo oo rust yar si ay u qaataan oo nasiina yar meelaha kale oo ku fiiriyo kadib oo soo laabto 20 minutes kasta mar inuu indhaha nasiina oo siiyo. waxa la sheegaa indhaha nimirsiga waxay nimirsadaan ama indhaha nimirsigooda ilaa waxay 16 oo jeer 24 saac halka saacadii 1 jeer. qofka marka aaladaas isticmaalo nimirsigiisu waxay noqonaysaa saacadii 60 jeer. xarunta marka waxyaabaha ay qabato waxa kamid ah daaweynta cudurrada indhaha oo general ahaan oo aan la kala qaadaynin major iyo minor intuba 24 saac xarunta marka laga reebo xitaa jimcada xitaa waa adeegnaa laakiin dhakhtarka wuxuu soo fadhiistaa oo shaqeeya 6 maalmood marka laga reebo maalinta jimcada. laakiin jimcada dadka waa u furnay dad waxa jira oo maalmaha kala jaanis heleen si macnaha adeegoodii howlahoodii haday u baahnaada farsamo iyo kiyaalo waxa la mid ah si ay u helaano wixii qalliimo kale oo dadka waa diiwaan gelinaa waa u sameynaa. marka sidoo kale bilahan dab waxaan sameynay qiimo dhimis oo aad u balaaran oo xagga computer-ka aragga cabirka oo biyaha aragga dila oo kala koomada loo yaqaano dadka hor lacag badan la qaadi jiray hadda laakiin discount fiican loo sameeyay oo macaamiisha